dal ku yaala Afrika oo dadkiisu qaar ka mid ah lagu khasbo inay cunaan hilbaha bini'aadamka. barnaamijkeena faham maanta waxaan ku eegaynaa warbixin qaraacankeeda leh oo laga soo wariyay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Juliana Lusenga oo madax u ah haween ku boobay 40 urur oo ka dhisan gobolada bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegtay inay la kulantay oo ay la sheekaysatay haweeney lagu khasbay inay kariso hilbaha bini'aadamka ayna wax ka cunto. waxay u warramaysay golaha ammaanka ee qaramada midoobay 29 Juun ee sanadka 2022 xilligaasi oo sidoo kale golaha ammaanku uu warbixin siinayay ergeyga u qaabilsan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Bintou Keita. Miss Lusenga ayaa ka warbixisay tacadiyada ay la kulmaan haweenka ku nool bariga Dimuqraadiga ee Congo. waxa ay sheegtay inay la kulmaan xadgudubyo ba'an oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ay geystaan kooxaha mucaaradka ah ee hubaysan. mar ay ka hadlaysay haweeneyda cunto hilbaha bini'aadamka waxa ay tiri waxa la afduubtay 2 jeer oo xitaa waa la kufsaday marar badan laguna khasbay inay cunto hilibka dadka. markii ugu horeysay haweeneyda waxa afduubtay dagaalyahano ka tirsan kooxaha hubaysan ee Codeco iyadoo indhaha saartay nin la dilay dabadeedna qoorta laga jaray. waxay la soo baxeen calooshiisa waxa ay inaga codsadeen inaan kariyo. waxay ii keeneen 2 weel oo biyo ay ku jiraan si aan cuntada inteeda kale ugu diyaariyo. kadibna waxa ay siiyeen maxaabiistii xidhnaa oo cunay hilbihii bini'aadamka ayay tiri Miss Lusenga oo u warramaysay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kana sheekaynaysa waxa uu sheegtay haweeneydii ay hore ula kulantay. Miss Lusenga ayaa sheegtay in haweeneyda la sii daayay dhowr maalmood kadib balse iyada ku sii jeeda gurigeeda ay afduubtay mar labaad kooxo kale oo ka mid ah fallaagada ku sugan bariga Congo kuwaasoo hore u kufsaday qaar ka mid ah ehladeeda. mar kale waxa la weydiistay inaan wax ka kariyo oo aan cuno hilibka bini'aadamka ayay tiri haweeneyda oo ugu dambeyntii baxsatay sida ay sheegtay Safabedi oo ah madaxa ururka u dooda haweenka ee Dimuqraadiyadda Congo. si kastaba dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waa meelaha ugu xasilooni daran dunida waxaana in ka badan 20 sano dalkan ku sugan ciidamo ka socda qaramada midoobay kuwaasoo ilaa hadda u taagwaayay colaadaha ka taagan gobolada qaar. arbacadii ayaa ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalkan ka digay in colaadaha ka soo cusboonaaday bariga dalkaasi noqon karaan kuwa faraha ka sii baxa. wuxuu sheegay haddii fallaagada M23 ay sii wadaan weeraradooda inay halis weyn gelin karaan howlgalkaas sida uu sheegay danjiruhu. danjiraha ayaa ka codsaday labada dal ee dariska ah waa Congo iyo Rwanda inay xalliyaan khilaafka ka dhex taagan si aan looga faa'iideysan. dhowr wadan oo ku yaala bariga Afrika ayaa horaantii bishii hore ee June isku raacay in la sameeyo ciidan goboleed la geeyo bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo si ay gacan uga geystaan joojinta rabshadaha gobolka. sidoo kale dhawaan danjira Keita ayaa ku baaqay in shir madaxeedka midowga Afrika ee dhawaan Angola ka dhacaya in lagu xaliyo khilaafka ka dhaxeeya Dimuqraadiyadda Congo iyo Rwanda si kooxaha fallaagadu u helin fursad ay dadka rayidka ku gumaadi karaan sida uu sheegay. bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxa ku yaala dhul ballaaran oo qani ku ah macdanta waana sababta ay ugu badan yihiin kooxaha fallaagada.